ujeedada halkan waxa weeye waxaan qayb ka nahay booqashadii rasmiga ah madaxweynaha ku yimid wadankan Qatar. Booqashadaas oo ahayd booqashadii ugu horeysay oo state visit waxa loo yaqaan booqashada madaxweynaha oo rasmiga wufuudii waxaan ka mid ahayn wadanka timi qayb ka ahayd wafdigaas. waxyaalihii laga wada hadlay ka wada hadleen laba dawladood dhamaantood la isku afkartay haddii alla idmana fulintooda ayaa bilaabanaysa dhawaan. saad la socotaan hadda ka hor waxa jiray bishii November sanadka hore heshiisaan galay oo wadooyin jidad la dhisayo Xamar iyo Afgooye iyo Xamar iyo Jowhar mashaariic waxbarasho iyo kuwa shaqo abuur intiiba waa socdaan. kuwii jidadka iyo dhismayaashii dowladda la dhisay berimaas hadda 17 bisha ayaa haddii alla idmo kuwii dhismayaasha soo gabagabaabayaan oo shaqadii dhismayaasha wasaaradaha hirgelisa. tii waxbarashada waa socotaa wasaaradda waxbarashada waa sarkan. marka guud ahaan waxyaalihii laga wada hadlay iyo booqashada marka la fiiriyo jawiga guud sidoo ahaa si aad u wanaagsan ku qanacsan yahay u dhacaan. waan u mahadnaqaynaa dhammaan shacabka iyo dowladda Qatar. waan mahadsan yihiin insha Allah anagana dadaalna dhinacayaga waxay ku xiran ku saabsan si xiriirka loo sii xoojin lahaa si adkeynayna. waxaan rajaynayaa hadii la shaqooyinka noo yaalayna soo dhaqsaha badan iyo waqtiga loogu talagalay ku fulin doono hadii